munaasabadan ballaaran oo lagu qabtay magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ayaa waxa si wada jir ah xariga uga jaray dhismaha cusub ee loo sameeyay qaybtiisa dugsiga sare iskuulka Ablaal Farciisa Gurceel madax ka socota dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Galmudug munaasabada ayaa waxa ka soo qayb galay xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Galmudug Axmed Deeq Falko xubno ka socda wasaaradda waxbarashada Galmudug qaar kamid ah madaxda jaamacadaha ka howlgala Gurceel aqoon-yahano iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ugu horeyntii waxa munaasabada daahfuray wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Galmudug Axmed Deeq Falko wuxuuna bogaadiyay maamulka iskuulka Ablaal shaqada adag ee bulshada reer Galmudug u hayaan isagoona ballan qaaday ka maamul ahaan inay si wanaagsan ula shaqeyn doonaan runtii inaan xafladan qayb aad iyo aad u quruxda badan inaan ka soo qayb galno galabtay taasoo ujeedkoodu ahay inaanu dadka wax qabsaday ee ka taliyay mustaqbalka ubadkeena horumariyay waxbarashada juhdiga ku bixiyay ayadoo ciduna garab taagnayn runtii inaanu dhiirigelino annaguna aan u muujino garab istaag qorshaheena ugu weyn oo galabta safarkeena wuxuu ahaa inaan u mahad celino kana soo qayb galno hawlihii adkaay qabteen bahda reer Ablaal iyo ardadiisa iyo maamulkiisaba in maanta deegaankan quruxda badan runtii waxbarashada u diyaariyeen walow ognahay in meeshii aanu rabnay inuu wali la gaarin laakiin waxay muujinaysaa dadku inay wax qabsan karaan runtii waxaan ognahay iskuulka kani Ablaal wuxuu kamid yahay iskuulada gaarka loo leeyahay haddana ayadoo sidaas ay tahay in deegaankan runtii ay maanta diyaariyaan ama gurigan ay diyaariyaan waxbarashada u diyaariyaan waxay muujinaysaa in dadku markay isku tashtaan inay wax qabsan karaan taasuna waxay baahi tiri doontaa hadii Ilaahay yiraahdo oo tartan gali doontaa in iskuuladii dawliga ah iyo iskuulada gaarka loo lahaay inay tartan gali doonaan hadii Ilaahay yiraahdo oo u gali doonaan xagga standardka iyo xagga tayada iyo dhan walba ay tartan u gali doonaan annaga ka wasaarad ahaan waxa naga go'an in labadaba aanu garab istaagno oo u garab istaagno inaan ilaalino shuruucdii waxbarashada hadii Ilaahay yiraahdo oo ah hadafka ugu weyn oo rabno inaan gaarno annagoo labadaba dhiirigelinayno waxbarashada barafadka iyo madab Macalin Macalin Axmed maamulaha guud ee iskuulka Ablaal ee gobolka Galgaduud ayaa faahfaahin ka bixiyay heerka uu soo maray dhismaha cusub ee iskuulka Ablaal iyo ardayda labada iskuul ka kooban arday xoogaa marti oo dhusmareeb ka timi ardayda Gurceelba waalidiinta jaamacadaha degmada Gurceel ka furan dhammaantiin dadka ka soo qayb galay xafladan cidii aan ka tagay waan ilaaway haga raalaato wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi waxaan galabta isugu nimi inaan nala aragtaan hawshan oo in muddo iskuulka Ablaal uu hayay oo iskuulka waa ogtihiin in badan wuxuu ka furan yahay 12 sano magaaladan Gurceel misana guri kira ayaan deganayn in badan baan ku talagalaynay inaan maal iskoolku leeyahay aan degno mar ay noqotaba ilaahay maadiis hadda noo suura gashay inaanu muddo 4 sano aan ugu qaadatay inaan dhisno dhulkaan iibino oo aan 8 fasal iyo 2 xafiis aan dhisno iyo mas'uulaha darbiga ku wareegsan inagoo iskuulka Ablaal iyo dad ehelo qaraabo oo na taageeray iyo wax noocaas ku saabsan oo aan wax kale oo hadda nagu gacan siyaanay jirin ayaanu maanta waxaanu joognaa inaanu iskuulkan joogno oo dhul weyna oo noo bannaan yahay iskuulka intaana ay noo dhisan tahay weli baahidii waan haysaa oo gurigii kirada weli kama aanan bixin oo iskuulkii qaybina halkan ay hadda wax ku barataa qaybina meeshii hore ay joogtaa qaar kamid ah aqoon-yahanadii ka soo qayb galay munaasabada ayaa iyaguna mahadcelin iyo dardaaran u jeediyay maamulka iyo macallimiinta iskuulka Ablaal kuna amaanay shaqada adag ee u hayaan bulshada Alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh galabta aad iyo aad ayaan u faraxsanahay inaan iskuulkayga Ablaal Farciisa Gurceel aan joogo xafladiisii waliba ardayda dugsi sare lagu furayay qayb cusub ay degaan xaqiiqdii farxadeeda lama soo koobi karo mar haddaan dhex taaganahay iskuulkayga Ablaal iyo waliba waxaan aad rabaa inaan uga mahad celiyo
maamulaheena qaaliga ustaad cali macalin axmed cali dulduul oo ah qof aad ugu dhabar adeega gobolkan waxaan aaminsanahay maanta inuu gobolku joogo heer dadku ay shaqo u soo doontaan laakiin xilligii ay laga bilaabay ablaal ay ahayd xilli aan u baahnayn waxbarashada oo aysan gobolka ka jirin ilaa heer dugsi sare aniga waxaan ka mid ahay dadkii ku faa'iiday ka wax bartay haddana heer jaamacadeed markaan muqdisho ka soo qaatana dib ugu soo wasaaradaha kala duwan dowladda galmudug culimada waalidka ardayda hooyooyinka dhammaan ka soo qaybgalayaasha xafladdan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka horeeto wax iga farxad badan ma jirto galabtay inaan ka soo qayb galo furitaanka iskuulka ablaal faraciisa gurceed ee qaybta dugsiga sare waxaan ka mid ahay dadka ka soo qalinjabiyey iskuulka ablaal 2007 kana aflaxay ka bacdina maxaa la yiraahdaa aan dhihi karo wanaaga aan maxaa la yiraahdaa u hayno ma malayn kartiin waxaan xasuustaa khayr Allah si ustaad cali macalin oo markaan iskuulka sii galiyana ku dhahaya ama dameer raac ama saan maxaa la yiraahdaa wax u baroriya intii waxaa munaasabada soo xiray xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliya isagoo isna bogaadiyay maamulka iyo macallimiinta iskuulka ablaal sida wanaagsan ay uga go'an tahay tayeenta waxbarashada sare u qaadida iyo sidoo kale cilmiga iskuulka ablaal iyo guud ahaan reer Gurceel assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan ka bacdi maanta sharafay noo tahay runtii inaan munaasabadan aan ka soo qayb galno waxaan aad u dareemayaa farxad aad u tiro badan intaan oo ciyaal dhalinyarada yaryar ah oo ubadkeeni berri ah oo loo diyaarinayo meeshii ay wax ku baran lahaayeen meeshii ay mustaqbalkooda ku dhisi lahaayeen meeshii ay ku hagaajin lahaayeen duruuftooda iyo maciishadooda iyo xayaatadooda mustaqbalkooda la xiriirta inuu sarxigan ama meeshaan aadka u quruxda badan iskuulkan laga dhiso ablaal uu gaaro natiijadan uu xaqiijiyo muddo dheer oo tacliinta ka shaqeynaya kadibna meel ayagu ay leeyihiin iyo maqaam ayaga ay leeyihiin iyo mabna ayaga ay leeyihiin hadda ardadii maanta ay dageen aad baan runtii ay horumar u tahay dadka deegaanka ay horumar u tahay iskuulka ay horumar u tahay guud ahaanna ardada wax ka dhiganaysa ayaa runtii ay saameyn gaar ah ku leedahay tacliinta marka laga hadlayo waad iska ogtiin oo dhinacyo badan ayay taabataa laakiin waxa ugu muhiimsan ayaan rabaa inaan sheego midda koowaad waxa weeyaan wax qiyamka akhlaaqiga ee qofka ibn aadanka uu leeyahay hagaajisaa waxbarashadu haddii meesha laga soo barto waayo inaad muwaadin fiican noqoto dalkiisa iyo dadkiisa u naxaya marka ardaga takwiinkiisa iyo dhismihiisa iyo mustaqbalkiisa halkaana laga jaangooyaa iskuulka laga jaangooyaa inuu cunugu xaraami noqdo oo mid waxadaaya noqdo oo mid dadka dhibaaya uu noqdo waxay ka timaadaa inaan ilmiga la keenin halkaan iyo goobaha waxbarashada inaan la keenin markuu meesha waxbarashada yimaado halkaan oo kaleeto waxaa ka soo bixi kara cunug diyaarsan oo garanaya waajibaadkiisa oo asaga waxa saaran ah iyo xuquuqda iyo xaqa asaga uu leeyahay ayay baraysaa marka cunugu marka waajibkiisa iyo xaqiisa bartana waxa weeyaan xuquuqdiisa inuu raadsaday keenaysa laguma adeegsan karo si xun looma isticmaali karo si khaldan looma adeegsan karo marka uu qofku uu intaas iyo mustawahaas runtii marka uu gaaro waxyaabaha aadka muhiimka u ah runtii halkaan oo kaleeto marka la joogo ardada muhiimka u ah waxa weeyaan duruufta dhaqaale ee qoyska ama cunuga waxbarashada kadib markii xafladu soo ilaatay ayaa mid kamid ah ardayda dugsiga dhexe wuxuu soo bandhigay hal abuur uu ka sameeyay mid kamid ah tiknoolajiyada casriga ee haatan ay dadku isticmaalaan oo adduunka intiisa kale laga isticmaalo Fartuun Maxamuud Axmed Fartuun Filsan 5 Somali TV Dhuuso Mareeb